qisada maanta waxaa waaye idan qiso kale Sacuudi ka dhacday. Nin baa wuxuu u shaqaynayay shirkad shidaal, nin carab ah, shirkad shidaal oo shidaalka sifayso hagaajiso oo Sacuudi ku taal. Ninkana carab waa Sacuudiyaan u ahaa, laakiin shirkadda waxaa managerka nin cadaan oo Amerikaan ah ayaa ka ahaa, maamulo ka ahaa. Marka ninka cadaanka meesha waxaa u yaala marka biyo watara waqti hore ahayd sideetameeyadii, biyaha watarka marka kalis caba dad kale shaqaalahan fuustada iyo meelahaas maxay ahayto barkad iyo meelahaas biyaha shaqaalaha ay ka cabayeen biyo gaar ah iyaga u diyaarsanaa ma jirin. Laakiin ninkan biyo saxa oo gaar ah nadiif asaga loogu talagalay yaa meesha yaalay. Wiilka shaqaalaha ahaa marka wuu oomay markuu shirkad meesha ku dhex oomay biyo cabo waaye. Markaasuu ninkii maamulaha managerka ahaa biyihiisii soo qaatay oo cabay marka oon darteed is celin waaye. Markaasuu ninkii cadaanka ku jeesjeesay marka maxay ahayto uu yiri yaa cab ku yiri kuu fasaxay. Marka yaa cab kuu fasaxay biyihiina miyaa ilowday yiri aaw biyihiina waxaa u raadsan weysay biyo adil ugu talagalay. Wiilkii hadalkii qalbi uga dhacay shib buu yiri waa maxay ahayto shaqadina waa ka tagay. Fiisuu dalbaday wuxuuna raadsaday scholarship uu raadsaday oo lagu baranayo shidaalka iyo sida loo hagaajiyo Mareykan. Fiisii waa helay, waxbarashada scholarship-kana wuu helay. Juhdi u maray ciilka ninka u dhadhansiiyay biyaha watarka. Markaas maxay tafag dhahay Mareykan uu aaday jaamacadda shidaalku soo bartay 4 sano wuu soo dhameeyay isla shirkadii laftirkeeda ku soo laabtay. Maadaama nin carab oo hawsh yaqaan yahay shirkadii asaa maamulo looga dhigay. Ninkii cadaankaana shirkadii waa laga casilay, shaqaale caadi asaga ka hooseeya u noqday. Kursiga shal ninka ku fadhiyay waxaa ku fadhiistay wiilka shaqaalaha carabka ahaa ayaa ku fadhiistay. Watilkal ayaamna daawilaha noloshu waa cajalad wareegsanayso, qofna ha bahdilin, qofna ha ku jeesjeesin. Maanta haddaa ka fiicanta beriyo laga yaabo inuu kaa fiicnaado oo ka hoos marto. Markaasuu maxay ahayto shirkadii ku fadhiistay oo wiilku wuxuu noqday qofka u sareeya kambaniga shidaalka maxay ahayto. Markaasaa ninkii u yimid cadaan ka soo gashay ninkii cadaanka ahaa. Wiilkii oo meesha fadhiyo oo nin weyn noqday meeshiina maamulkeeda dhan asaga ay talada ka go'ayso. Ninkii cadaanka marka codsi soo qortay oo ninkii maxay ahayto wiilkii carabta shal ku jeesjeesay biyaha waxay u diiday. Warqadii marka ninkii ku socotay markaasuu u soo qoray wuxuu yiri cod saas iyo saas u baahanahay. Maalintii ayada ahaydna ha ii qabanin oo maxay ahayto oo biyaha ku diiday oo kugu jeesjeesay maxay ahayto ha ii qabanin ka raali ahaw. Maantana dantaasaan leeyahay ilaa qofku markii loo shaqaalo u yahay waa loo talin waxyaabo badan oo adna dana ka soo galayso qofkii maamulka ahaa. Markaas wuxuu dhahay marka iigu yeeru yiri marka waa loo yeeray soo hor fadhiistay. Wuxuu dhahay maalinta dad igu jeesjeesi lahayn dhahay biyahana aad ii diidi lahayn dhahay maanta meesha hadda aan fadhiyo maadan fadhin ma soo fadhiisteen yiri adaa ku sii fadhin lahaa yiri kursigaas. Maanta kursigan waxa keenu dhahay soo fariisiyay maxay ahayto meesha shalad fadhidan ana maanta ani imaaday ee noqotay waa hadalkii ay tiri iyo biyihii watarka ah caba ee igu jeesjeestay taasaa keentay. Marka jeesjeeskaada guul ii keenay waxba igama haleynuu dhahay waxba igama haleynay hankeyga kor u qaado yiri bas maxay ahayto wixii aad codsatayna waan ku yeelo dhahay qabso. Warqadii uu seen garay wixii uu ka dalbado uu sameeyay markay wax soo ka toosan yihiin oo noloshaadu ay meel saaran tahay ama dad aad u talinayso oo inta ka hooseyso ha bahdilin hana ku jeesjeesin sababtoo ah noloshu waa cajalad wareegsato way ka daba imaanaysaa. Marka qofkaas aad bahdishay bari asaga maxay isugu toosaysaa. Marka maxay ahayto waxaa laga yaabaa inaad dankaas soo gasho. Marka waxaa la dhahay isma hurto ya is halaynin ama maxay ahayto watilka ayaamna daawilaha bayna naas. Noloshu waa ku dadka ku dhex wareegsanaysaa waa cajalad wareegsanaysa. Marna aday yawmul laka wa yawmun alayk. Marna aday isku ka saaran tahay marna aday ka jaban tahay. Waa iska adduunyo. Marka isku ka saaran tahay dadka ha ku jeesjeesin hana bahdilin noloshu waa cajalad wareegsato.